marka macصida u dhaxaysa qofka iyo ilaahiisa see looga toobad keenaa dambi baa ka dhacay insaan shuqul kuma laha adoon iyo walaal shuqul kuma laha waxba idima kala gaarin dadkan walaalaha jaarka tihiin laakiin ilaahay baa dambi ka gashay been baad sheegtay oo ma aragtaa wax ay ka noqdeen waxa sameynaysa indhahaadii baa xaraam arkay waxbaad la kale noqotay dhagahaygii baad wax ma aragtaa ku soo qaaday gacmahaygii baa wax ku sameysay waxun adiga ilaahay idin dhaxaya see ilaahay uga toobad keenaysa saddex arimood waa loo baahan yahay iyo mid afraad oo suubisa waxa weeyaan marka hore iqlaac inaad ka hadid macsidii iyada ahayd inaad ka foqdid zani baad ahayd ka fogow isaga tag otherwise been baad sheegi jirtay iqlaac jooji marka iyada ah inaad ilaahay ka toobad keentid baartaa aad ilaahay u soo noqotid been baad sheegi jirtay salaad baad ka tagi jirtay zaka maadan bixin jirin maadan soomi jirin wixii aad sameyn jirtay adiga ilaahay idin dhaxeeyay ee aad ka tagi jirtay ama aad dayici jirtay jooji iqlaac ka fog ka had talabaad ka shalay hadana war ilaahi abuuray ee khaliqa aha ya ilaahi irzaaqayay igu hayay adduunka ee aan u laabanayay berrito ilaahi xisaabinayay qabriga aan u baahnaa qiyaamaha ilaahi mahsharka miisaanka siraadka aan u baahnaa ilaahi damaca iga jiray jannadiisa inuu igeeyo iga badbaadiyo cadaabka miyaan ku caasiyay sujuudii ibliis looga soo saaray jannada hal sujuud ayaan sanad 2 sano 3 sano aan tukanaynin allah ilaahay inta uu san qabanin ibliiska fiir sida loo dhaafin hal sujuuda kaliya ayay ahayd wixii uu diiday usjud aadam wuu diiday asjudu liman khalaqta tina marna wuxuu yiri ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin wallahi sujud labaad ma aanu diidin salaad subax tukana ma aanu diidin waa hal sujuud kaliya markiiba maxay keentay in irsaaqdi laga xarimo irsaaqdi waa maxay naxariista ilaahay ya oo lagu irsaaqay in laga xarimo laga soo saaro haye inaad shalay sida laga rabaa الله صدح صلاة ما نتكنن شن ما نتكنن شلي درات لو بالسند الله إلهي ولي وما سجودين ولي نفس دي وجرته عافمات إمونا قبن إلهي إن هذا يصير يا رب أنا داموتت مر الله لي مركز سلا ندام ذا أكينتد تسدح دوام حتى هرو إقلاع تندمبوا ندامه شلي قوم مين إن قوم ميسد تنسدحات وحويان عزيمة إن تقادتد دبدم بإن هذا واجب كاس أدينين إن هذا إلهي أعاصين دب إن هذا أقول الله بني فالحمل فحشي وسخذي يا فوقان شيء إلهي أتكفوقت عزيمة إن أتقادت تدبع لقى الربا صدح ذا مركز سميسد دبدت أعمال ووناك سنبع لقى الربا مركز دبدت إنا سميسد وأتبع سيئة الحسنة تمحها حتى ترتيه انت مركز سميسان وحويان عماشيني تارك صلاة نمذي iyo wixii xumaa sameyn jirteen ribadii iyo wixii zakadii aad ka tagi jirteen soon la'aanti ma aragtaa amal fiican la'aanti wixii oo dhan ilaahay wuu idin bedelaya waa hadii saddexdaas si dhab aad u keensataan tawba nasuuxa la yiraahdaa inaad ka foqdid wixii xumaa inaad ka sheelaysid go'aan inaad qaadatid dib dambe inaadan uga haraynin inaadan u sameynaynin oo aadan dib u fiirinaynin a'maal wanaagsan marka aad bilowdaan tawba nasuuxa la yiraahdaa wixii hore oo dhan ilaahay intuu dhaafo dhaafid kaliya ma aha xasanaad buu ilaahay hadana idin kugu badbaaya allah ya ilaahay intaas sano la soo caasinayay oo maanta qura intaad u soo laabatay hadana kaale ku dhahayo oo gondiisa ku soo gelinaya ya oo hadana wixii xumaa oo dhan wanaag kugu bedelayo salaad la'aanti hadii salaad lagu bedelo ka waran allah soon la'aanti soon lagu bedelo beentii run lagu bedelo ya يعني وحي حماء طيبات اللي بدلوا يا هيلي كرايا يا كسين كرايا أبدا